السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا مقل راديو ان تي في oo maalin walba sabti ah hawada ka soo gala stuudiyihi ma joogno maxaa yeelay aniga iyo Jamaal waxaana kala kaxeeyay waa COVID-19 oo la yiri guryaha ha laga soo galo marka ma sha Allah marka hore aan ku soo dhaweeyo walaalkay qaaliga ah saaxiibkay Jamaal Axmed Jamaal ku soo dhawow maqal radio mahadeen aad baa ku salaamay adiga iyo daawadayaasha radio maqal waan dhawahay mahado Jamaalow baa barnaamijkeennii maxaa cusub oon usbuucana ku hadli doono marka waxaan doonayaa bal inaad marka hore usbuucii dhaweyto wixii ku soo kordhay maxaa cusub iyo waliba usbuucan oo ah inaan ku jirno waxa fasax wax lagu yeero booska ama Easter aan ku jirno bal guud ahaan anagoo dhaqaalaha wadanka u gali doona usbuucii hore ee tagay maxaa ku soo kordhay Norway ku cusub iyo usbuucan iminka aan ku jirnaba mahado sida wada ognahay de wadanka Norway wuxuu ku jiray saddexdii wiig u dambeysay waxa loo yaqaan bando marka iyadoo bando lagu jiray waxa soo hadana way yimid xilligii la gali jiray fasaxa marka waxay noqotay bando lagu daray fasaxa waxaad moodaa wadanku inaan cidi dhaqaaqaynin dadka guryahooda ay joogaan waayo sidaan hore u sheegnay mahado isbedel xoog la ayaa ku yimiday dhaqdhaqaaqa dadka marka dawladuna aad buu xakameysay dadkuna waxay qaateen amarada ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo dawladaba marka mahado wax la galay laba bando is saaran marka xaaladu xagga dadkuna waxay moodaan iskala qabsadeen intooda badan ay guryaha iska fadhiyaan marka mahado waxa weeye waxa ku sugan tahay maanta magaalada Oslo ama wadanka Norway dhamaanba inuu dhaqdhaqaaq aad u yariyo wadanku wuxuu ku jira xaalad bandooya ama xaalad degdeg mahado waa gartay marka fasaxan imika lagu jiro waqtigan xaadirka ama dawladda Norway guud ahaan iyo waliba haddaan kugu sii daro dhaqaalaha wadanka Norway sidee buu noqday markii la yiri guryaha la joogo maxaa ku soo kordhay oo cusub in dhaqaalaha wadankan Norway sidoo noqday anaga u gali doona dhaqaalaha yare danyarta ah laakiin bal guud ahaan dhaqaalaha iyo dadku maxay sidee wax u saameeyeen iyo waliba dollarkii iyo lacagtii Norway ba mahado sida la wada ogay maadaama wadanku galay xaalad degdeg ah bandooya dhammaan waxa istaagay wixii dhaqdhaqaaqii dhinaca ganacsiga oo kala ahaa marka waxaad moodaa dhaqaaluhu sida ay sheegeen dadka u qaabilsan ama bangiga laga maamulo ama central bank wadanka Norway wuxuu sheegay dhaqaaluhu hadda marayo halkay Norway maraysan 1930kii oo dhaqaaluhu hoos u degay waayo waxa wixii dhaqdhaqaaq ahaa hadday noqoto airportadii hoteeladii macaamiishii dhan bay istaagay marka waxaad moodaa in wadanku dhaqaalis total istaagay oo wax dhaqaale jirin sida ay sheegtay wasaaradda laga diiwaan galiyay dadka markay shaqada waayaan waxay sheegtay dad aad iyo aad u fara badan inay sheegeen inay hadda u baahan shaqo oo shaqooyinkooda laga joojiyay maadaama hadda tusaale soo qaato ninka ugu caansan wadanka Norway ee leh hoteelada ugu caansan wadanka waxa uu sheegay inuu shaqada ka fariisiyay dad gaari ilaa 10,000 oo qof wuxuuna codsaday in sida ugu dhaqsaha badan la magaraysa loo furo magaalada marka waa dareemi kartaa marka dadka hoteelada ka shaqeynaya ama dadka magaraysa ganacsatada ahaa waliba ha u daradaan dadka magaraysa private ama businesska ahaa iyagu iskooda u madax banaanaa ee kabaniyada lahaa ama dukaamada lahaa dadkaas ayaa waxaad moodaa inay dhibaato aad iyo aad xoog badan soo gaadhay oo intooda badan dadkii u shaqeeyay dadkaasna ay shaqadii ka fariisiyeen marka dhaqaalaha Norway wuxuu galay meel aad iyo aad u hooseysa laakiin si moodnay mahado wadanka Norway dadka jooga waa dad aad u yar waana wadan dee aad lacag badan haysta marka kulli dawladdu waxay ballan qaaday cid kasta oo dhaqaale ka lumo ama qasaartay inay dawladdu markaas sii doonto magdhow marka warwar badan oo magaraysa mahado wadanka Norway ma jiro dhinaca dhaqaale laakiin sida adduunka oo dhan ka dhacday dee dhaqaale xumo dhacday lacag la'aan baa dhacday laakiin de waxaan la ogeyn mahado xaaladdu intay gaari doonto ama waqtiga ay ku dhamaan doonto mahado waa gartay Jamaalow Soomaalida usbuucyadii hore doodo badan baa warbaahinta ka socotay marka waxaan doonayaa usbuucan iyo Soomaalida dareenkoodii iyo sidoo xaalku noqday markaan dhinaca Soomaalida wadanka Norway nimaado anagoo wadankeena tagi doona sidoo isagu jawiga Soomaalida ee markay noqoto COVID-19 viruskan socda ay ula qabsadeen waqtigan xaadirka markaad eegto laba usbuuc ka hor mahado waa sheegto haddaan waxoogaa ku daray intii walaal kaga hadlayay magaraysa dhaqaale oo kale hadda waxa dhacday qofkii dadkeenu dawlad dadka Soomaaliyeed inta badan waxay diraan lacagtii la diray waxay qaali gowda 20% ilaa 25% ku dhaw kor u kacday marka dollar lacagtii wadanka Norway inta badan ku xidhnayd magaraysa waxa weeye saliidda ama olyada ayaa waxay hoos u dhacday marka qofkii maanta diray $100 waxa laga yaabaa inuu lacag dheeraad ah diro maanta oo lacag badan lagu bixiyo oo 5% ku kordhay lacagtii u diray
waxa kaloo mahadoo la sheegay in la xadiday lacagaha la dirayo aad loo yareeyay oo bangiga dhexe soo saaray in wadanka lacag badan laga saari karin marka dadka Soomaalida waxaad moodaa way saameysay oo dadkii lacag ay diriyay dadkooda Ingiriiska ku xidhaayeen waxaad arkaysaa in baahi qofkii xaggan joogay wadanka joogay marka shaqadii laga fariisiyo waliba lacagtu dirina ku sii qaali garowdo dareemsa culayska ay leedahay mahado marka dadka Soomaalida haddii dib u soo noqdo waxa weeye bishan April hadda ku jiro koodeed waxa la soo saaray dadka ma garanaysaa dhibta ugu badan ay ku dhacday ama ay saameysay xanuunkan inuu dadka Soomaalida laakiin waxaan moodaa way ugu dambeysay in dhalinyar badan oo wadanka ku dhashay ama ku bartay barnaamijka usoo bixinaysa sabableen way dadka wacyigelin fiican siiyeen marka ummadda Soomaaliyeed waxa la rajayn soo socota cadeed baa soo baxday iftiin baa soo ifaya marka wadan way ugu dambeysay waxa arkaysa dad badan oo Soomaali waliba dhalinyar oo dhaqaatiir ah oo dad waxaan aqoon u leeyahay inay barnaamijka soo taageen ay dadku wax u sheegayeen ay cajalada soo duubeen raadiyada ay ka hadlayeen social media ay isticmaalayeen oo lahayn magarasa dadku ha qaataan awaamirta ka imanaysa wasaaradda caafimaadka waddanka Norway marka dadkina si fiican bay u qaateen wax badan bay iska bedeleen mahada wiigada la soo dhaafay oo dadku sidii loogu talagalay u qaateen amarkii wasaaradda caafimaadka marka waxaad leedahay jawigu uu ka duwanaa marka la eego 3 wiig ka hor waqtigani waxay noqotay waqti ay Soomaalidu markaa is abaabulayeen markaad eegto dhaqaalaha Soomaalida oo waxaan ognahay Jamaalow in dayar badan ay dukaamo badan leeyihiin Soomaalidu ay waliba xaafada degan tahay dukaamo aad u far badan ku yaalaan waxa laga yaabaa qaar kamid ah inay sharciyeysnayn oo markaa badanaa way sharciyeysan laakiin qaar kamid ah ba laga yaabaa inay urur ku joogaan ama magac kale qof kale ay ku furan yihiin dadkaasi khasaaraha soo gaaraya markaad eegto dawladdu waxa tiri mar dhow carabaabayso tilmaamayso tiri inay damaanad qaadeen dhaqaalaha la kabi doono marka dadka aan iyagu hore isku diiwaan gelin oo ka rajays gareyseen ama caymis haysan ama insurance iyagu sidee bay yeelayaan way khasaaraha ugu weyn dadkeena waxa weey marka hore kama tabaabushaystaan oo isma diiwaan geliyaan hadday dhacdo jirto waa sidee xaaladdu noqonaysaa dadkaas ma hado lama oran karo dadka Soomaalida kale laakiin waxa laga yaabaa dad inay jiraan laakiin dadku intooda badan wax sharci oo nidaamka waafaqsan laakiin waxaan dareemi karaa ama Soomaaliya kaliya ma laakiin dadka inta badan baa mushtarka qofkii ma garanaysaa aan raacin shuruucda u taalo wadanka Norway dhinaca magarasa ganacsiga ama habku qofku u furay magarasa business-ga u gaara qofkii shuruucda raacin waxa laga yaabaa waqtiga waxa ay tahay inuu lumin doono inay soo gaari doonto magarasa dhibaato aad u ballaaran oo lacag badan lumin doono way dawladdu waxay ballan qaaday dadka ganacsatada ah way waloogi qof walba waxa soo gala system baa wadanka lagu jira marka magdhow la siin doono laakiin qofkii marka ama systemka si qadan ugu jiray ama aaba kuban jirin de kulli wax laga yaabaa inuu khasaare soo gaari doono maado laakiin dadka Soomaalidu kaliya ma laakiin dadka ajnabiga oo dhan wax laga yaabaa inay samaysa ama guuji ama dadka aan raacin nidaamkii loogu talagalay dhinaca ganacsiga maado waa gartay haddaan Jamaalow ka yara baxnoon wadankii tagno waad ogtahay wadamadan hadda galbeedka aan joogno iyo dadka dhaqaalaha haysta waxay ballan qaadeen inay guryaha la joogo la kabi doono lacag la siin doono waxa noo muuqday wadankii haddaan noqono wadankii tagnaba Jamaal inaanan hooyo Soomaaliyeed ama aabbo Soomaaliyeed oo iska xamaasha ama yaanyo ama maxaa la yiraahdaa dacas ama wax yar wax meel ku iibsada dukaan oo la yiri gurigaaga joog oo la kabaynin dadka danyarta ah sidee bay iyagu uga tabaabushaysan karaan waayo qofku markuu dawladdu ku fikirto gurihiina joogo lagu dayanayo sidan halkan aan joogno kale ma dhici karto oo ognahay waxa kale aan kugu darayaa inaad israaciso masaajidkii ma sha Allah xaramkii baa xiran ba haddana dadku waxay khasbanayaan inay furaan iyagoo la yiri war caafimaadkiina lamaba kabi kare gurihiina jooga marka sidee baa la isku balance gareyn karaa waxa afqalad lagu yiraahdo la isku miisaami karaa in gurihiina jooga la yiraahdo hadii masaajidada noqoto iyo in markay noqoto suuqii bakaaraha ama waaheen ama suuqa Garowe in dad la yiri lagu khasbay in guriyahooda joogaan cid kabaysa caawinaysaana ay jirin Jamaal ma hado waasa sheegto warbixin soo saaray bangiga adduunka wuxuu sheegay dhibaatada ugu badan ee ku dhici doonta wadamada ka hooseeya saxaraha ama wadamada qaaradda Afrika tusaale ahaan waxaa la sheegay ama uu sheegay bangiga adduunku inay tusaale kale markaas waddanka Nigeria Angola kale saliida u diri jiray wadamada dibadda in hadda taas istaagtay ama ay hoos u dhacday waxa kale sheegeen Kenya Ethiopia markaa in la jaara iyaga laftigooda inay wax soo saar badan ay dibadda u diri jireen
kiina markaa istaagay ama hoos u dhacay taasina markaa ay noqonayso markaas waddankaasi inuu khasaare soo gaaro haddaan dib ugu soo noqoto Soomaalidu markeedu horeba magarasa xaaladeedu iska had bariga dhexe qofkii markaa dhex guriga joog dad badan waxaa jira magarasa sheegtay magarasa Muruqmaala Kooriya iyo suuqa ku iibiya oo aynu u saamaxayn gurigooda joogaan cidda maran qaaysaasina ma jirto marka waa dib culeyskeeda leh qofkina guriga joog aqli maaha magarasa hadduu lahayn wuxuu ku joogo waxa laga yaabaa markaa dibadda soo baxo shaqada nolosha caadiga ay socoto wadaagista magaalooyinka Soomaalidu nolosha caadiga u socota dadku way iska shaqaysanayaan wixii awal bay sameyn jireen bay sameeyeen way marka la weydiiyo wax ku leeyahay maxaa guriga ku joognaa wax ma mahayne marka waa mid aan dareem karo maado dhinaca kale laftigeeda dawladaha ama maamulada ka jira waddanka laftigoodu wuxuu waxa ahayd magarasa iyaga laftoodu iska kuulun bay ahaayeen de lacagteedu meel tale ma jirin meelaha keel jira magarasa dakhligana waa la xidhay marka ereeboorradii waa kamid ah dekadii baa kamid ah ganacsigii kale caadigii baa kamid ah waxaas oo dhan baa istaagay taasi marka waxa laga yaabaa dawladaha laftigooda ama maamulada inay soo gaadho dhibaato ah inay bixin kari waayeen magarasa mushaarkii ay siin jireen siba magarasa askarta oo kale iyo shaqaalaha dawladda marka ninka askariga markuu mahadu mushaar waayo dawaad garanaysa ammaankii baa xitaa halis geli kara mahada waxa inta ka sii daray dad badan waxa jira magarasa loo yaqaan wax barakacayaasha ama ay hay'ado wax siiyaan maanta wad arkaysa hay'adii dhammaan deeqa wax bixin jiray dadka siin jiray cuntada dhammaan way isku taageen oo waxaad arkaysaa inay dadkii magarasa lacagaad bixin jiray wax ku deeqi jiray nin walba maanta uu tiisi magarasa la tacaalayo oo isaga dhibaato waddankiisa gudaha ka haysto marka lama xasuusanayo nin walba wuxuu leeyahay madaxdu waxay leeyihiin nin walba waddankaaga badbaadi in wadamada kale lacag loo diro in hay'adaha magarasa United Nations lacag la siiyo aad bay u adkaatay waxa tusaale ku soo qaato mar hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hanjabay lacagta inuu ka jari doono lacagta la siiyo hay'adda caafimaadka loo yaqaan WHO hay'adii kale maxaad u malaysaa marka waa dhibaato jirta marka waxa kaloo arkaysaa inay waxa wixii ku tirsanaa hay'adaha deeqaha bixiyo dhan istaageen dawladaha ama maamulada ka jira Soomaalidana waxa ka jiray hay'adaha ama dawladaha lacag ka jiray tiin marka way istaagtay marka mahadu waxay ku jiraan arrin aan islaahay haddii si socoto dib weyn baa ka iman doonto mahadu haddaan halkan u soo noqono waxaa igu maqaala adiga macallin baa tahay dugsiga sare ee waddanka Norway magaalada iskuul ka mid ah macallin ka tahay ma la furayaa baad isleedahay usbuuca soo socda dugsiyadii hadday noqoto xanaanada carruurta sidayse uga falceliyeen waalidiintu mahado maadaama aanu ka tirsanay wasaaradda waxbarashada waddanka Norway waxa warkii u dambeeyay wuxuu ahaa in iskuulada la furi doono 15 bisha Abriil laakiin lama hubo laakiin warka soo baxay dawladdu waxay sheegtay in la furi doono iskuulada hoose iyo meelaha carruuraha lagu hayo 27 bisha Abriil marka la gaaro laakiin taasi waxa ka horjeestay waalidiinta oo aan ogolaan marnaba oo sheegay inayna weli la gaarin waqtigii iskuulada ama la bilaabi lahaa oo dib loo furi lahaa way waxay yiraahdeen ammaan maaha xaaladuna ma sugna waxay kaloo sheegay waalidiintu inayna ogolaan carruurtooda u diraan iskuulada iyo meelaha lagu hayo carruurta maadaama inay dawladdu ballan qaadayn inuu xanuunkii dhamaaday waxay sheegeen carruurta si ilaalin karto mar raaci karaan awaamirta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka oo dhanaysa hala kala fogaado nidaamka carruurta ma raaci karaan oo ma fahmayaan waxa meesha ma fahmi karaan marka waalidiintu waxay leeyihiin waan u baqaynaa carruurteeda marka ilaahay dawladdu damaanad qaadayso leedahay waddanku waa nabad xanuunku ka dhamaaday carruurteeda ma direyno marka saddex mahado waddan dimuqraadiyeed joognaayo saddex qola is haysta inta badan oo tartamaya waa markii raasay lahayn ganacsatada oo doonayay wax walba dib loo furo oo wax ku dhacay dhaqaale burbur dawladda dhinac bay taagan tahay waxa kaloo taagan ururkii shaqaalaha oo magarasa weli lama gaadhin xilligay dadka shaqaaluhu dib u bilaabi lahayn shaqadooda oo waxaa jirtay leeyahay magarasa halis badan oo dhinaca caafimaadka ama dawladdu ma damaanad qaadayso inuu magarasa xanuunkii u istaagay ama inuu fido marka mahada weli waa isku dhagan yahay laakiin waddanka waa waddan dimuqraadi soo sheego waalidiinta inta badan go'aan kale marka haddii waalidiintu diidaan carruurtooda inay diraan waxaa laga yaabaa marka inayna si loogu talagalay inuu dhicin maado markaad eegto waddankan aan dariska nahay oo jaarka nahay ee Sweden oo iyagu aanan haba yaraatee xiran oo sidoodu iskaga furan dad badanna ay xanuunkan u dhinteen dawladda Norway iyagu waxaad isleedahay xiriir yaa labadan lagu dayan karayo macquul ah markaad eegto kuwana jihaday raaceen qoladana jihaday raaceen mahado weli lama gaadhin xilligii la qiimeynay la odhan lahaa sax ayaa qaldan laakiin waxaad soo baxaysaa inay Norway iyo Denmark ay qaateen ama magarasa waddankii bandow lagu soo rogo marka laakiin Sweden wax walba sidii caadiga loogu talagalay u socdaan marka waxaad dareemaysaa Sweden dadka ku dhintay hadda waxay marayaan waxay ku dhown ilaa 1,000 qof laakiin Norway kale waxa ilaa hadda ay la cadeeyay inay dhintay dad gaaray ilaa 112 qof
Sweden ma gaaraan 200 marka halka waxa ka soo baxaysa ma garanaysaa inay sidii ay qaateen ahayd bandoodii Norway iyo Denmark inay shaqaysay laakiin Sweden aan wariteedii si loogu baahnaa aan u shaqaynin mahado marka mahado waxa kale oo arkaysa ma garanaysaa de kulli telefishinka ka daawatay in nolosha sida caadiga Sweden iska socotay inta badan inkastoo dadka ay sheegayaan inay ku jirto baqadin oo dad badan ay taxadirayaan inuu banaanka u soo baxin mahado ugu dambeyntii maxaad talo u soo jeedinaysaa usbuucan bulshada Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan markaa soo bowsatay hadday noqoto dhaqaalihii hadday noqoto in weli gurigaaga joog ama stay at home waxay u bixiyeen afka qalaad waa taladaadu gudaheed isleedahay usbuucan waad kusoo kordhinaysaa maxay tahay mahadu dadka Soomaalida dhinaca caafimaadka waxaan kula talin lahaa inay amarada ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ay qaataan oo ilaa wax laga bedeliyo sidii hore ay ahaadaan oo guriyooda joogaan oo ay ma garanaysaa nidaamka ay raacaan dadka ganacsatada waxaan kula talin lahaa dawladdu waxay ballan qaaday inay dadka siinayso magdhow marka qof walba sidii ugu dhaqsaha badan ma garanaysaa ha u codsado ama ha raadsado meeshuu ka heli lahaa ma garanaysaa magdhow waana arrin aad iyo aad muhiima qofkii shaqadiisa laga fadhiisiyeyna waxa ay dawladdu u furtay telefoonno gaara ama nidaam gaar oo lagu caawinayaa jira marka qofkii caawimad ha raadsado sida ugu dhaqsaha badan leh kadib markaa wax laga yaabaa dawladdu inay caawiso qofkii markaan awoodin inuu caawimada helana waxaan ku codsan lahaa dadka Soomaalidu inay iscaawiyaan oo la caawiyo oo dadka la tilmaamo dad badan oo san hore u sheegnay maanta hormada waxaa jira aan isticmaali karin oo luqadda fahmi karin oo dhibaato ay haysato marka waxaan ku rajaynayaa in la iscaawin doono dhibaatana laga bixi doono mahado si ugu dhaqsaha badan leh maasha allah barnaamijkeena intaasaan kusoo gabagabeynaynaa waa Jamaal Axmed waa Mahad Cabdulle taladaada ugu dambaysa ee radioga aad leedahay talada ugu dambaysa waxa weeye gurigaaga joog talada wasaaradda caafimaadkana qaado insha Allah waxaan rajaynaynaa wax walba inay sida cadda ku soo noqon doonaan dadkuna rajo badan bay qabaan oo waxaan rajaynaynaa inay wax walba furmi doonaan marka laga baxo waqtiga fasaxada ku jirno kulli waxaan maadada waad ogtay wadanka Norway waxa xilligan hadda ay ku jiraan loo yaqaan Easterka waa xilliga ay dawladda Norway ama dadka sameeyay lacagaha ugu badan waa wadanka Norway wadan qabow waxa loo yimaado lagu ciyaaraha barafka marka dad badan oo sanadkii waxa jira aynu suuro gelin inay yimaadaan Norway ama meelihii lagu ciyaaro dhammaan waa la xiray oo dawladda go'aanka ay soo saartay la qaatay marka dhaqaale xumadaasina way jirtaa laakiin waxa weeye dadku xuquuqdooda ha raadsadaan dawladdu waxay ballan qaaday in qof walba oo ay saameysay dhibaatadani inay siin doonto magdhow marka sida ugu dhaqsaha badan leh dariiqa saxda raac waana helaysaa wixii aad xaq u lahayd say dawladdu ballan qaaday Jamaalow aniga waxa igu daran ba meelaan tima ka jirtaan la ahay marka nin walba tibi codeysay 40 xabo oo igu yaala ayaan la ahay meelaan ka toosiyo marka waa dhibta igu weyn hadda ay haysto waa inta kula aniga la fiyo mado dhibta kula qabaayo waa loo darsaday marka hafroogayna iska haysanaa timaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني عصب مقال راديو أسبوع دم سبتك دم إن شاء الله أنا يا جمال أحمد حيدي كي تجينا سدايو نبد قليو خير الله كسي جمال سي أسبوع دم رمضان